sideed qof baanuna nin u xoojiya male ana hooyo aababa u ahaa halkaas aan la tubanay daadku ka qaaday daadad xoogan oo ku soo rogmaday dooxa weyn ee magaalada Burco ayaa waxyeello u geystay qoysas danyara dugsiyo iyo dhismayaal kale hooyadan iyo dad kale waxay ka cabanayaan in biyihii toga mari lahaa bartanka laga xidhay taasina ay keentay inay biyuhu jabiyaan darbiyada ciidda ee u dhaxeeya kaabada lagu gooyay bartanka dooxa weyn ee magaalada Burco waxaanay sababtay khasaare soo gaadhay guriyo ay deganayeen qoysas danyara iskuulo waxbarasho oo halkaasii ka agdhawaa ma yeeli jirin kaabada markii la dhisay ninka dhisaya iga daabaan ku udhi iga muudayn daadkaasi uu qaadaya kaabada aad dhisayso naga jooji wuxuu waxaan ka marinaya waxbaan ka marinaya nala kama marin waxaan ku nidhi maatadii dalkaanu nahay hoos noo eega baan ku nidhi iyagoo dhisaya nooma eegi ha naloo yimaado ha nala eego hantidayadii daadkaas qaaday waana naloo bareeray hantidayadii daadkaas qaaday waxna ma hayno ubadkii daadkaas aanu la dul tubanna xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay nasiiso gacan gurmad nasiiso halkaas aanu tubannahay meel allaale guri aanu gallo iyo meel aanu u kacno waa naga halkii uu naga qaaday baanu tubannahay shay kalama aan bixin way cagcad yihiin waxaan wax ugu karina ma hayno sidii xalay daadku nooga qaaday ayay nooga qatan yihiin xukuumadda waxaan ku codsanaynaa gurmad degdeg ah anu waxaan ahay reerka gurigan kan qarka lusha kawli dooxu aageedkan dooxu uu naga fogaa kawli intoonu noo jiri ilaa halka waa aragtaan waxa nagu soo jeebiyay waxa weeye waa biriska kaabada weyn ayaa nagu soo jeebiyay nimanka reer xagga laga xiga warsa wuu qaada Soomaaliyeed wuu qaada inta noo reer oo nala sinna wuu qaada maal xagga nimanka waxa weyn haddaan wax laga qaban kuwa kale inaad u imanaysa mushkiladaas oo dhan waa kaabada weyn ee aad aragto nimanka intii dhisneed baba khatar ba ku jirta quwadda Ilaahay baa ka xoog weynaatay waxaanu leenahay wixii tacaba iyo wixii badbaada ah dambe la qaban karo ha laga qabto meesha qasaarada waxa aragteen baa gaadharka dad baa yiilay gaadidka waa aragtana way laalaadaan bacdoodii iyo haygoodiba dawlad tagay waxa wax laga qabtaan leenahay waana quwada Ilaahay wixii la qaban karo la qabto tarada hawla guud ku shaqale waxaanu leenahay wixii tacab hore la geystayna waa aragtaan imika mid degdeg ah loo baahanyahay warta nimco waliba nuqsaan leh nimco Ilaahay baa daaday oo raxmad baa daay marka waxoogaa nuqsaana baa dhacay kaabada halka biriiska biyo loogu talagalay inuu ciidda biriiska u ilaaliyo ayuunba adeer dabeedna biyihii halkaa soo jabsadeen markii kaabada soo celisay marka waxoogaa dhibaato baa dhacday waxaan ka hadlanaa biyahaas markii hore waxa mari jireen wadda haysteen biyahaas roobka hadeer da'ay biyaha yimi waxa u horeeya biriishka la sameeyay meesha la sameeyay ayaa ugu horeysa waayo biyahaas waxa mari jireen wadda ay haystaan hadda waxa soo duwa waxaan u aragnaa inay waxa la sameeyay tahay oo qorshihiisu injineerkuna uu ku si kastaba ha ahaatee bishii la soo dhaafay ee Maarch 19keedii wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Somaliland Abdirahman qambi uu xariga ka jaray dayactir lagu sameeyay biriishyadaasi Burco oo uu sheegay inay ku bixeen lacag kor u dhaafaysa $500,000 waxaan mahad ilaahay inaynu furro labadii bridge oo si adag ay shirkadda hiirad u dhistay labada bridge oo lacag 500 iyo dheeraad kun ay madaxweynuhu u qoondeeyay kuna baxday balse waxa wali muuqata qabyada bridge-ka deero ee aan darbiyadu dhisnayn taasina ay keentay inay biyuhu ku fatahaan dadkan dayartahay ee degan dooxa dacalkiisa Abdirahman C-Tiriike telefishinka Horyaalka magaalada Burco.